daawadayaal halkan ay ka daawanaysaana waa ceelka holhol ee gobolka Sool. ceelkan waxa uu ka mid yahay goobaha uu shidaalka qotomo. Waddanka Soomaaliya burburkii ka hor ayaa dawladda Soomaaliya heshiis la gashay shirkad laga leeyahay carriga Mareykanka oo loo yaqaan Konoko, taasoo heshiiska la siiyay ceelkani oo hilaadinaysa shidaalka qotomo iyo kheyraadka ku duugan ceelka holhol. Waxaana bilowday inay uga faa'iideyso dadka Soomaaliyeed, laakiin taa beddelkeeda waxaa ka soo gudagalay burburkii waddanka Soomaaliya. Muddooyin fara badan oo dadka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ay gaar ka hayeen kheyraadka ku duugan ceelkani waxaa damacyo fara badan ka galay maamulka Soomaaliland diidka ee Somaliland kadib markii heshiis la galeen shirkad laga leeyahay dalka Norway oo loo yaqaan DNO. sida darteedna ay go'aan ku gaadheen inay sahmiyaan Balogoydin uu ka mid yahay ceelkani. waxaana deegaanada soo gaadhay wufuud ka socday shirkadda DNO kuwaasoo ku duulay helikobtaro kuna duldegaya buuraha dushooda. taa beddelkeeda dadka deegaanka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa qoryaha qaatay waxaana goobihii ka baxsadeen shirkadda DNO. bal dib u milcso waayaha ilaahu xaq noodna raacana nagu hanuuni baadil kana baadil waatus inaanu ka dheeraana nagu hanuuni war waxaan mudaharaad ka nahay oo ka soo horjeedna oo ceebaynayna diyaaradahan iyo hay'adan ay wadato discovery-ga yuhuud baa wadato 7% yuhuud baa leh diyaaradii labaad ee hawada sare maraysay iyadoo shirkadda lafteey waa kii saddexaad diyaaradda hadda dul maraysa gaalaale yuhuud baale marka heshiis lama inaan gelin mustacmal maaha oo mucaahid maaha oo mustaajar maaha oo maalinka maanta waxa la waa xarbi ina soo weeraray oo macanteedii kheyraadkina la baxaysa waxaa loo baahan yahay ilaahay dhulka inagu inagu beeray dhulku waa dhul ilaahay waa dhul islaam waa dhul Soomaaliyeed laakiin inaga ilaahayna ku beeray ummad walba meesha ilaahay ku beeray danteeda iyo taladeeda iyada inta Allah aynu ka hadalno oo aynu diidanahay haddayna ka fursan weydana waa jihaad waynu ka jihaadayna dagaal baynu ka xidhnaa. waqtigaas maamulka Soomaaliland uu hogaaminaya Silaayo waxa waji gabax ku noqday dhacdadani, sida darteedna waxa meesha ku wiiqmay heshiiska DNO. dhacdadan ayaa daha ka qaaday masiirka ceelkan inuu gacmaha ugu jiro dadka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ama beesha dhulbahante. hadda maartay la sheegay ceelkan waa holhol weeyaan. in badan waxa laga yaabaa way isweydiisaa ma waa maqlaan holhol xagee ku taalaa. holhol waxay ku taalaa gobolka Sool bay ku taalaa, gaar ahaan qaybta maartay Nugaasha ama Dhoodida loo yaqaano. marka wanaga maartay saa u dul taagan waa ceelka hadda maartay waxa soo maartay dagaala ama waxa soo dhiba ama maartay dadka loogu leynayo weey. waa ceelka waxaas ka dhacayaan weeyaan, waa ceelka dadka lagu leynayaa weeyaan. salaajigeed marka waxaan u sheegaynaa maartay ummadda Soomaaliyeed waa ceel ay leedahay ummadda Soomaaliyeed weeyaan. inta Soomaalinimada jecel oo Soomaalidu inay israacdo ama mudooda jecel weeyaan. cidii Soomaalinimada ka soo horjeeda ama israaceeda ka soo horjeeda waxba kuma leh weeyaan. marka aad iyo aad baan idin salaameynaa maartay inta na dhageysanaysa iyo inta maartay na garanaysa iyo inta aan na garanaynba iyo inta maartay Soomaalinimada danaynaysa aad iyo aad baan idin salaameynaa. bismillaahir rahmaanir rahiim. halkan aynu joogno waxa weeye waa ceelka la yiraahdo ceelka shidaalka qaniga ku ah saliidda qaniga ku ah ee holhol. waxa weeye waa ceelka hadeerto looga taag la yahay musabixi iyo maamulkiisa. waa ceelka uu aynu leenahay war miyuu waanaya mise miyaqamu dalkiisa iska aado waxa waalida ku riday waxa weeye waa ceelka daraadiisa. markaas ceelkan waxa iska leh Soomaalida wixii islaamka ah oo jecel Soomaalinimada iyo midnimada jecel ayaa ceelkan iska leh. insha Allah bismillah kariim. gaar ahaan waxa iska leh waa la yaqaanaa waa ceel daarood. inta uga degi maayo. waxa weeye marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha Allah bismillah kariim inaynu Ilaahay ceelka kan inoo calfo dhamaanba muslimka oo dhan wixii Soomaalinimada jecel Ilaahay calfo baan Ilaahay ka rajaynaynaa. reer galbeedka kale aad baa laga soo wada dhoofi doonaa. halkan waa meel hoose shidaalka halkan isugu iman doona saliid isugu iman doonta waa laga soo wada dhoofi doonaa. marka dalkeena iyo dalkeena qaniye niyaduna haynoo samaato insha Allah bismillah kariim aanu wadankeena aaminsanaano. وأنا محمد عويل كوته عيلك هول هول gobolka Sool.